waxaa ku sii kulaanaysa qoraxda badduna way sii kacaysaa. Bakar Cabduqaadir Cumar waxaa u dhammaystiran qalabkiisa kalluumaysiga balse kuma dhiiran karo inuu badda gudaha u galo, waayo waxa uu ka baqanayaa inuu ku raad noqdo tiro saaxiibadiisa oo muddo 2 toddobaad lagu laayahay gudaha badda. والله عبس وين قبنا ساعبكي سي عيال كان لو قبسدي oo nolol dhaay waa la isqabsanooya wareer weyn qabnaa dooman kan u jeedid cabsi wareer ay qabaan shaki ku baxooyin waswaas ku baxooyin shameen ol qabaa ay dhooyin hadda shameen ol qabaa laakiin guriga way ka halis badan tahay qatarta ninkan u diidayso inuu kalluumaysi tago in badda liqdo ama ay kacsan tahay sababtoo ah waxaa jira dhibaatooyin kale oo ay kala kulmaan maraakiib iyo dooni ay sheegeen in laga leeyahay wadamo shisheeye kuwaasoo doonta iyo dadka saaranba la wareegaya iyagoo cidna aysan ogeyn goobta la geenaya iyo sababta dhalinyaradan loo qabanayo. Iimaan oo ka mid ah dhalinyaro ka soo badbaaday rasaasta ciidamada shisheeye gudaha badda ayaan kula kulmay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho waxaana uu iga warbixiyay dhibaatada oo la kulmay. doonta la waayo iska soconay isla soconay si oo soconay galaayda mooyani xabadaas oo gamay xabadii oo niga koranka marnay doontii kale noo baan saddex tamaqan saddex anina saddex ma jirto dhibaato cabasho badan oo ka imaanaysa gudaha badda taasoo ku aadan dhibaatada lagala kulmi jiray burcadbadeeda Soomaalida, laakiin waalidiinta dhalinyaradan ayaa hadda aad uga cabanaya ciidamo shisheeye kuwaasoo ay ku sheegeen in hadda gacanta ay ku hayaan dooni iyo in ka badan 12 dhalinyaro Soomaaliya kuwaasoo u kalluumaysi tagi jiray xeebaha Soomaaliya. wiilkay ma ka harsado ma ka hurdo yaa wax ma raashin ma cuno intaas iiga maqan yahay wal bahaara cidii dhan haysa aniga sii fiiraarika haween iyo maalin waa ooya waa ii soo naqanay maalintii waa iska baxay waxa soo hadiisoo waayna gurigaas isku soo naqanay maalintii lamaad waa baxay marka ilaa isbuucdii saddexaad lu jira unugay inaa la igu soo hagaajiyaan jecelahay. saddex wiil ayaa iga maqan oo badda wiilgooda anaga badan ka arsaqana ilaaha naga sii arsaaqada waa iskaga moodayeen dib ma ku qabin kadibna markii dambe waxaaba la keenabo in ayaga dhan la waayo sida khamiistii hore u baxeen ilmihi al-ultima waxay sheegtay ay dadka afkooda u batay in Faransiis ay haystaan doona iga maqan geega 20 jir ah oo maraakiibtan ka shaqeynay inaga haastaan khamiistii iga tageen jimcadii sugeeni sabtidin waan weyni hadii kale waxaan ka shaqeynay doomo maraakiib Iiraan waxa jiro oo na bursadaan mar walba ay awood noo sheegtaan qoray wataan doomana soo daqsay wana hanjabaan waana baadaan waana gumaadaan dawladda u dacwoon wax ay ka qabanayaan male ninka arkaan seeraban yeelaan aad waa dhibaato ku cusub dhalinyarada ka shaqeysa xeebaha dalka haddii ay sidaan ku sii socoto waxaa yaraan doona dhalinyaro u shaqo tagta xeebaha taasoo saameyn ku yeelan doonta wax soo saarka iyo ganacsiga laga keeno xeebaha dalka. Zikri Maxamuud Timacada, Universal TV, Muqdisho.